12 sano kadib ayuu la kulmay mucjisadii afkiisa uu ka saadaashaday. haddaba fanaanka Cawaale Aadan oo aad u wada garanaysan ayaa waxauu inooga sheekeynayaa qiso xanuun badan oo ku dhacday nin saaxiibkiya oo abwaan ah. qisadan ayaa waxa ay tahay mid xambaarsan cibro qaadasho aad u ballaaran. haddaba daawade, waxaan rajayn doonaa ilaa dhammaadka inaad nala daawan doonto, maxaa yeelay waxay kuu noqon doontaa mid aad wax badan ka faa'iido oo berri ka maalin adiga wax kuu tarta. maxaa yeelay qisadan waxaa laga dheehan karaa waxyaabo fudud oo inagu caadi u dhahno mararka qaar ku noqon kara wax weyn. haddaba intaynan u guda gelin qisadan cajiibka, hadday tahay booqashadii koowaad ee channelka aad soo booqatay, fadlan ha ilaawin inaad subscribe dhahdo, sidoo kale furto gambaleelka si aynan ku dhaafin warbixinta aan halkan soo gelino. saaxiibaday aad baan idiin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi saaxiibaday, maanta waxaan jeclaaday inaan idinla wadaago qisad ay ku jirto cibaaro fajaca. horta intaan qisada gelin waxaan idiin sheegaya, horta kow, anu magac ma sheegayo, mana sheega caadi ahaanteeda magacda. nin saaxiibkay ah oo abwaan ah oo khatara heesa badan ii sameeyey, dad kalena heesa badan u sameeyey baa qisadii iga sheekeeyey. abtigii hooyadii la dhashay baa qisada ku dhacday. abtigiina waa abwaan kale oo khatar isagna, oo aad heesa fara badan sameeyey iyo riwaayado fara badan iyo sameeyey. marka abtigii wuxuu ahaa askari officer buu ahaa. officerku markaad officer tahay waxaad xaq u leedahay inaad degto guri dowladeed, aad wadato baabuur dowladeed. sidaas bay ayuu barnaamijku ahaa. marka guri dowladeed buu deganaa, baabuur dowladeed buu wataa, mishaar fiican buu wataa, wax ka maqan ma jirto. waxay ka tustay inuu hees qoro. heestii gabadh baa loo dhiibay, gabadh Roode la odhanayay, Roode Axmed, ilaahay u naxariisto, way dhimatay hadda. baa heesta loo dhiibay. hadda waxay dhacday qisadan waa 1990skii 1990kii ayay dhacday. heestii markuu qoray ayuu gabadhii u dhiibay. gabadhii way qaaday. heestu waxay ahayd hees ereyada ku jirayay habaar meedhana, waa gebigeedu waa habaar. waxaan nidhi wax ka maqnayo ma jiro, maan nidhi heestu uu sameeyeyna waa hees habaar uu qoray. waxay ahayd heestu silicii ma laabno sooniyo abaarbaan, saqda dhexe ismu ogaan socotaynayaaye. heestii baa lasoo tuuray, kaban baa lagu tumay, saxophone iyo waxaa lagu tumay qalab, riwaayadaha lagu dhigay, heestii samaday gashay. odayga waxaa loo soo tuuray waraaqdii waxay odhanaysaa, sir, waxaad gaadhay waktigii retire dhag waa laga tuuray. guriga markaa retire noqoto, guriga waa lagaa saaraya, baabuurka dowladda waa lagaa qaadaya, mishaharka waa lagaa goynayaa. 3 biloodba mar baa mishaar lagu siinaya. waa 90 cishaa mishaar lagu siinaya. haddii toole in retire baad gashay, 3 months baa lagu siinaya. 3 months lacagteeda lagu soo tuurayo, lacag ku filan ma aha reerkaaga. tii hore uma dhigmayso. tii hore reerkaaga ku filnayd maaha tan waa retire, waa nolol kale, nolol cusub baa galaysa. nolosha cusbeed buu galay. waxaa la yidhi lacagtii markuu helay buu reerkiisii qaaday. marka dee nolosha maadaama ku filnaan weyday, wuxuu ka saaray meeshii uu deganaa, yuu ka saaray maadaama ku filnaan weyday noloshii, meel kale buu geeyey. magacda lama sheego baan horay u nidhi, meel kale uu geeyey, magacda lama weydiini. markuu meeshii kala geeyey, noloshii xoogaa wax yar buu u tuurtuuri jiray reerkiisa. wax yar 3 bilood mar soo dhaca buu u tuuraya reerkii. isagiina wax yar ku noolaado buu kala hadhaya.
wixii baas gaari waayey 4 in the morning buu maalin maalmaha ka mid soo baxay quraac buu soo doontay makhaayad buu yimid makhaayadii quraacii dalbaday anigoo sii quraacii la siiyo mugsa u dhadhamiyey buu ninkii lacagta gurayay ee maqalka hayay baa hadlay ninkii cuntada dhigdhigay buu la hadlay waryaa hebelow wardee waxaa cajaladii way istaagtay gadi buu dhinaca kale u rog waa cajaladihii dhinaca kale loo rogi jiray magan regto versoge rog buu marxaba ninkii baa rogay play dhagac heestii baa ka soo baxday silicii ma laabno sooniyo abaarbaan saqda dhexe isma ogaan socotaynayaaye markaasuu intuu cuntadii joojiyey buu samada eegay buu ilaahu dembi baan galay ilaahu iga saamaxay rabbi waa maxay heesta wuxuu tiriyey isagoona silixaysan maantana wuxuu dhegaysanayaa isagoo silixaysto isagoona socotaynayn buu tiriyey isagoo socotaynayuu dhegaysanayaa isagoo barwaaqo ku jiruu tiriyey saqdi dhexuuna dhegaysanayaa saqda dhexe ismoogaan socotaynaya soo maahayn saqdi dhexe buu dhegaysanaya hadda waa saqdi dhexe waa 4 in the morning marka ujeeddada aan uga socdo maaha qisadda ujeeddada aan uga socdo waxa weeye war dadka bulshada la hadlow dadka accesska u leh inay bulshada la hadlaanow wariyayaashow abwaanadow fanaaniintow culumadow farshaxanka wax sawirow qoraaga buugaagta qorow dadka bulshada accesska u leh inay la hadlaanow be positive dad positive noqda negativeka iska ilaaliya ka durka negative you never know lagu aqbali doonaa positive negativekan aad qorayso lagu aqbali doonaana allahu aclam marka isku daya xilli walba inaad noqotaan dad positive ka hadla positive ha ka hadlina negative dad ka hadlaysaana dulmara wala dulmara negative waqtiyuna kaaga lumin dulmar laakiin negativeka ku raag positiveka oo jeeda positiveka ku raag waqti ku qaado positive aad ma idiin soo salaamaya saaxiibaday raalli iga noqda aadii sare baa idiin soo salaamaya meel kastoo kala joogtaan iyo noolaada oo bilaahi tawfiiq ku filan weeyay wuxuu ka saaray meeshii uu deganaa uu ka saaray maadaama ku filan weeyay noloshii meel kale buu geeyay magacada lama sheego baan horay u nidhi meel kale uu geeyay magacada lima weydiini markuu meeshii kala geeyay noloshii xoogaa wax yar buu u turturi jiray reerkiisa wax yar saddexdii bilood mar soo dhaca buu tuuray reerkii isagina wax yar ku noolaado buu kala harayaa wixii baas gaari waayey 4 in the morning buu maalin maalmaha ka mid soo baxay quraac buu soo doontay makhaayad buu yimid makhaayadii quraacii dalbaday anigoo sii quraacii la siiyo mugsa u dhadhamiyey buu ninkii lacagta gurayay ee maqalka hayay baa hadlay ninkii cuntada dhigdhigay buu la hadlay waryaa hebelow wardee waxaa cajaladii way istaagtay gadi buu dhinaca kale u rog waa cajaladihii dhinaca kale loo rogi jiray magan regto versoge rog buu marxaba guri dowladeed aad wadato baabuur dowladeed sidaas bay ayuu barnaamijku ah marka guri dowladeed buu deganaa baabuur dowladeed buu wataa mishaar fiican buu wataa wax ka maqan ma jirto waxay ka tustay inuu hees qoro heestii gabadh baa loo dhiibay gabadh rooda la odhanayay roode axmed ilaahay u naxariisto way dhimatay hadda baa heesta loo dhiibay hadda waxay dhacday qisadan waa 1990skii 1990aadkii ayay dhacday heestii markuu qoray ayuu gabadhii u dhiibay gabadhii way qaaday heestu waxay ahayd hees ereyada ku jiray habaar meedhana waa gebigeedu waa habaar waxaan nidhi wax ka maqnaay ma jirin baan nidhi heestu uu sameeyeyna waa hees habaar uu qoray waxay ahayd heestu silicii ma laabno sooniyo abaarbaan saqda dhexe isma ogaan socotaynayaaye heestii baa lasoo tuuray kaban baa lagu tumay saxophone iyo waxaa lagu tumay qalab ruwaayadaha lagu dhigay heestii samaday gashay odayga waxaa loo soo tuuray waraaqdii waxay odhanaysaa
sir waxaad gaadhay waqtigii retire dhag waa laga tuuray guriga marka retire noqoto guriga waa laga saaraya baabuurka dowladda waa laga qaadaya mishaarka waa laga goynayaa 3 biloodba mar baa mishaar lagu siinaya waa 90 cisha mishaar lagu siinaya hadii toole in retire baad gashay 3 months baa lagu siinaya 3 months lacag tira lagu soo tuurayo lacag ku filan ma aha reerkaaga tii hore uma dhigmayso tii hore reerkaaga ku filnayd ma aha tan waa retire waa nolol kale nolol cusub baa galaysa nolosha cusbeed buu galay waxaa la yidhi lacagtii markuu helay buu reerkiisii qaaday marka dee nolosha maadaama ninkii baa rogay play dhagac heestii baa ka soo baxday silicii ma laabno sooniyo abaarbaan saqda dhexe isma ogaan socotaynayaaye markaasuu intuu cuntadii joojiyey buu samada eegay buu yidhi ilaahu dembi baan galay ilaahu iga saamaxay rabbi waa maxay heesta wuxuu tiriyey isagoona silixaysan maantana wuxuu dhegaysanayaa isagoo silixaysto isagoona socotaynayn buu tiriyey isagoo socotaynayuu dhegaysanayaa isagoo barwaaqo ku jiruu tiriyey saqdi dhexuuna dhegaysanayaa saqda dhexe ismoogaan socotaynaya soo maahayn saqdi dhexe buu dhegaysanaya hadda waa saqdi dhexe waa 4 in the morning marka ujeeddada aan uga socdo maaha qisadda ujeeddada aan uga socdo waxa weeye war dadka bulshada la hadlow dadka accesska u leh inay bulshada la hadlaanow wariyayaashow abwaanadow fanaaniintow culumadow farshax saaxiibaday aad baan idiin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi saaxiibaday